mahadsan tahay mudane waxaan ku dhashay magaalada Qardho 1949 kadibna waxbarashadeeda dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe waan dhammaystiray waxaan ku qaatay magaalada Boosaaso dugsiga hadda loo yaqaano iskuulka loo yaqaano Xaaji Mire iskuulkaasaan badda saaran ayaa ilaa dugsiga dhexe dagaaskiisii labaad ku dhammaystay kadibna aabe wuxuu ii diray xamar baan waxaan ku dhammaystay dugsigii hoose dhexe Adaadiyal dhihi jiray ka bacdina waxaan u gudbay iskoolkii Allah Soomaalidu tiraahdo Allah Soomaalidu iska tiraahdo waxaa la dhihi jiray الثانوية وعليه مدرسة الثانوية العامة لكن حتى أقرأ الله أكبر بقرأ ما الله ولا بحده سكول الإله ما أنا وهو الله لكن عليه مدرسة الثانوية العامة كانت عندنا كبحي كدبنا وحان كبيري إذا ماذا ملتريكا كون سيال بقول لحنا يتدودي حنكملها ليلة راكيشي لودر دلكا راشيا halkaasoo aanu 3 sano aanu ku soo qaadnay tababarka waxaan ka soo noqonay 1967 kacaanka dhashay markaas 4 bilood jira ayaan dalka ku soo laabanay ka bacdina dee waa garan kartaa markii Leylisraak soo noqdo tababara la geliyaa tababaradaasoo maaga xarane laga bilaabo balcad meelo badan baan soo maray kadibna hadee markaas xabaaha la kala bedelay saraakiisha America loo kala bedelayaa anu markii ugu horeysay shaqada waxaan lagu bedelay rag dhowr sarkaal oo kale waxaan loo bedelay madaxtooyada Soomaaliya loo bedelay waxaan ka dhigay security-ga madaxweynaha ayaan noqonay kadibna halkaas oo hadee muddo 7 sano waxay ka dambeeyeen hadee sarkaalku waa dalaacaya ka bacdi markaas waxaan u wareegay ciidamadii caadiga ahayd waxaan ahaa madaxweynaha goobta waxaa laga dhigay taliyaha guutada madaxweynaha goobta Muqdisho kadibna waqtigaas waxay ka dambeeyay jagay badan baa soo qabtay waa la socday hadee ilaa tababarkii dambe aan haddana u aaday dalka Mareykanka waan kaga soo baxay kulliyadda Staff College riyada oo Mareykan ku soo dhammaystay waxay ka dambeeyeen hadee waxaa laga maray qaybta 12aad qaybta 16aad wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga wasiirka howlaha guud wasiir gaashaandhig haddana howlahaas oo dhan baan soo maray bishii April 9keedii saraakiil ka mid ah ciidankii xoogga dalka Soomaaliya waxay isku dayeen afgembigaasi waa dhicisoobay bal maxaad kala socotaa dhacdadaas iyo raggii hoggaamiyaha ka taqaan والله horta waqtigaas waxa waqti adag baa lagu jiray waxa waqtigii dagaalkii 77 laga soo baxay ciidan aagaas balaaran ku jiro dagaal ka soo baxan oo garan kartaa waxa lagu jiray dib u habeen iyo difaac in la galo iyo ciidan hada kala daasano dagaal ka soo baxay hawl adag baa socotay kadibna hada waxa bilowday inqilaabkii 78 markaasna waxaa taliyaha guutada koowaad ee madaxweynaha goobta Maxamed Sheekh Cismaan Cirrona wuxuu ahaa taliyaha guutada saddexaad ee difaaca cirka waxaana dhaxaysay waxay isu dhaween isla aag baan haydaynayla ayaa labada guuto ku yeelan inqilaabkaas waxa inqilaab horta aan xogtiisa lahayn inqilaab si kedis ah u dhacay inqilaab waa la ogaaday dowladda system beelada nabad sugid beelada baaritaan beelada waa kuwa ka horey loo ogaaday laakiin inqilaabka waxaa inqilaab aan la ogeyn oo si kedisa ku yimi salaada unbaa la maqlay xabad bilaabatay guutada saddexaad rideeda ka bilaabatay ilaa muxuu ahaa guuta labaad iyo annagoo guutada inay madaafiic ku soo dhacday xabadaas meelay ka socdaan cidriis waa la fahmi waayo هذا حبضة حي سعودان با إلى مدة قلبت إلى 9 ساعة قلنو دقال كاسوا وحبضة لسوي درسنا إذا ما بغن با سوق قلي قلت اللوا تنقيا دين عاد كوريقا حكتي كلية الجالسيات بهدنا ماشي كنت إلا يضنا إذا ما كتشري
adoo inqilaabkaas dee markii dambe oo dowladda dee systemkeeda markaa jiray waxaa loo qabtay markaa maxamed sheekh cismaan lagu eedeeyey allah u naxariisto inuu inqilaabkaa ka dambeeyey isagiina waqtigaas lama hayn gacan laguma hayn laakiin saraakiilkaa la qabtay ninkaasu markaas waa maqnaa oo muxuu ahaa aagga ma joogin ilaa muddo 11 maalmood kadib ayaa waxaa laga soo qabtay aagga Belidogle markii laga soo qabtay muddadaas uu maqnaa anigoo guutada kuwaad jooga ayaa laygu keenay habeenimo isagoo la wado haddii aan wareystan hadda wuxuu yidhi waa u bareeray cad baan ugu bareeray wuxuu yidhi naxdina kama muuqan ana caadi ahaa markaan casho u diraya oo aan soo dhaweeyey oo baalkii nin soo daalay oo duur ku jiray oo macnaha nin ku talagelkiisa ku talagalsan buu ahaa oo aan welweli waxba ku jirin oo u bareeray hawshaas u bareeray buu ekaa marka nin geesi ahaa oo hawshaas u bareeray adoo calaamaam waxaa weye ninkii muddo haddaan casho u diray oo waba xoogaan nasteen haddii raggii hawshaa lahaa igala wareegay oo ciidankiina uu sii daayimay oo la wareeg aniga toos laygu keenay waxaa wada ciidan buu ahaa militarigaas wadayna haddee nabadsiid ma geena anay soo aadiyeen warkaa ka baa ciidankana nabadsiidda la wareegay marka runtii inqilaabkaasu haddee baaritaankiisa anugu saraakiil yarar baan ahayn waqtigaas waxaa weeye 44 sana ka soo wareegatay waqtiga hadda waqtigaas anuu gaashaan la ahaa major baan ahaa maxamed sheekh cismaan cirrina wuxuu ahaa cornel buu ahaa full cornel saraakiisha oogana iga horreysay buu ahaa ciidanka iga horreysay aniga weyda waxaan maxaa noogu sheegi weysay haddii inqilaab uu jiro daana wuxuu yidhi adugu reer maxamed saad baa ka tirsan tahay aba kuuma sheegin buu yidhi laakiin wuxuu ii dhiibay qoraal iyo saacadiisi iyo qalabkiisa watay buu ii dhiibay iyo reerkii u gee haba alaabtiisi reerkan ugu wareejiyey subaxii dambe aan u geeyey intaasaa isugu kaana dambaysa maxaad ka taqaanay isaga qof ahaan wallaahi haddee raggii iga waaweynaa buu ahaa ciidankan waxaan isku soo gaaray waqtigaas waqti yar baa dagaalkii laga soo baxay baa aniga horta dagaalkii laga soo baxay baa guutada meesha isku baranay guutada lay keenay laakiin aqoon dheeraada oo faahfaahsan runtii raggii la da-da ahaa ama la gurubka ahaa iga badiyey laakiin wuxuu ahaa sarkaal runtii firfircoon oo jiilkan waxaan ku wada ciyaari jiray bilyaardiga habeenkiisa u tegi jiray aan ku wada sheekeysan jiray nin furfuran oo dabeecad fiican buu ahaa oo aada u furfuran haddee qof bini aadamku sidiisaba inqilaabka waagaas sidaba wixii loo gaay 60kii 70kii 80kii xilligaanu joogno maaha waqtigaas inqilaabka waa badnaa afrika ku badnaa asia ku badnaa inqilaabyada way badnaayeen waqti lasoo maray bay ahaayeen waqtigaas oo waqtiga inqilaabyada la sameynayay laakiin hadda waqtigan hadda la joogo waa yaryahay waxa inqilaabka ku fekeraa maxaa arrinta soo dedejiyey sidee qorshahaasi u fashiray horta warkaas annagu saad u maqasheen baan u maqalay inuu inqilaabka ahaa 12 abriil 12 abriilna waxaa wararku sheegayaan in cabdillaahi yuusuf axmed inqilaabka uu ka mid ahaa allah u naxariisto isaguna markaas wuxuu jiray aagga baydhabo iyo xaggaasuu jiray waxaad moodaa markaa waqtigii loogu talagalay 15 abriil maxamed sheekh cismaan ciiro inuu ka soo hormariyey ayaad moodaa waa si hade annagana loo sheegay wey noo markaan kuma dambaabi karo wax factsa oo la hayo maaha laakiin dadkii warkay sheegayeen waxay lahayn cabdillaahi yuusuf baa ku jiray maxamed sheekh cismaanna waa ka soo hormaray isagaa rabay inqilaabka inuu ku guuleysto warkii suuqa la marinayay yaa warkaas ahaa laakiin kolleyba inqilaabku saasuu ku dhacay inqilaab dowladdu og tahay maaha si kediisa ku bilowday u ahaa waayo inqilaabyada dowladdu system bay leedahay nabad sugid bay leedahay intelligence bay leedahay lama ogeyn marka taasna waxaa keentay dagaalkii 7/7 oo lagu mashquulay iyo ciidamada ka soo baxay iyo waxaasaba lagu jeedana ma filayn inqilaab baa waqtigan imaanaya cidna isma oran annaga labtana subaxdii waxaan garan weynay xabaddan waxaa ridaya iyo meeshay ka imaan weyso confusion baa dhacay hataa cali samantar allahu naxariisto wasiir gaashaandhigga waa soo wacay
haddee waxaan sheegan garan waaya xabadda dhacaysa xabad baa dhacaysa maahana wax loo raaco waxay soo wacay janaalkii abuurka aftooje oo isna howlgelinta hoggaanka howlgelinta joogay marka ilaa galabnimadii waxaanu ay kala caddaadeen cid xoogaal u ahayd ma jiro wallaahi anigu ragga lagu eedeeyo waa ka mid ahaa markii dambeeyay qaabka ku jirtay waa ka mid ahaa waxaana keenaya soomaalidu sideedaba waxay aaminsantahay wax qabiil la yidhaaho soomaalida halkaa dhiga waa qabiil qofku hadduu inqilaabi wax sameynayo dee isaga iyo hawsha xosho iyo sida u sameeya isaga ku xiranta laakiin markii la arko qofka waxaa hogaaminaya markii wax taarga looga dhigaya qabiil beel baa looga dhigaya anubaa raggi la yidhi waa ku jiray oo inqilaabi ku jiray ka mid baan ahaa laakiin xaqiiq ahaan kama mid ahayno cidna wax ima sheegin cidna ima imaan cidna wax ima dhihin inqilaab baa sameyn anugu tale waa ka bixin lahaa hadduu hadaa tale i weydiiyo waxaa laga yaabaa in tale ka baxsho laakiin hadda isagaan baxaba tale i weydiina hawshiisa isagii raggii kaloo la socday ayaa hawshaas ku koobnayd inqilaabka ka bacdi mucaaradku waa bilowday cabdullaahi yuusuf iyo saraakiilo wataa waa fikadeen ururkii SSF iyo SDF waa bilowday Ethiopia oo la dagaalamay dib loo galay 10 sano ka bacdi dowladdii Soomaaliya iyo Ethiopia heshiis bay galeen in mucaaradadii kala taageerayay albaabadooda la soo xiro ay soo dhawaadaan ciidamadii in la kala qaado bal arrintaa ka warra sidii wada hadalaas ku bilowdeen iyo sidii la isu aaminay isaas ku dhacay arrintaas waa xaqiiqo waa jirtay laakiin anigu waxaan aaminsanaa inaysan Ethiopia heshiiska daacadka ahayn oo khiyaano ku jirtay waayo heshiiska waxaa soo wada galay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya wasaaradda arrimaha Ethiopia laba dowladood baa heshiis soo wada galay qodobo dheer oo heshiis lagu soo wada galay waxaana hal qodob baa naga khusayay ciidamada halkaa qodob wuxuu ahaa kala rarista ciidamada maadaama dagaalkii 7/7 la galay in ciidamadii oo difaac isugu jira oo qaarkood 2 kilomitir isu jiraan sida 3 kilomitir sida Balambal oo kaleeto iyo sida aagaga qaarkood dhinacaas baarka saylac iyo meelo badan ay fooda saareen qodobkaas wuxuu ahaa in ciidamada la kala durkiyo oo la kala raro ayaa anaga qodobkaas khusayay heshiiska kalena wuxuu ahaa mid arrimaha dibadda iyo arrimahaas khusayay labada dowladood khusayay ahaa aniga qodobkaasa lay wakiishay dowladda dhexe wakiilatay inaan madax ka noqdo guddoomiye guddiga ka noqdo waxaa lay soo diray Cornel Ibrahim Aadan Doolaal oo hoggaanka siyaasadda wasaaradda gaashaandhigga jooga iyo Maxamed Ibraahim sabaro daqiiqa nin yiraahdo Cornel ahaa oo isagana markaa joogay amniga wasaaradda arrimaha dibadda labada nin oo qoraalkii wada ayaa aniga magaalada Hargeysa igu yimi qaybta 26aad qoraalkii haddii aan falaaqeynana talana waa wasiirka gaashaandhiggana waa ila soo hadlay maxamed cali soonta Allah naxariisto de hawsha inaan fulino anaga keliya yaana la ka rabay go-aanka la gaaray kadibna 15 abriil May 15 abriil 1988 ayaa shirkii ugu horeysay waxaan ku qabanay lagu qabtay Jigjiga ana waqtigaas aan waxaan ka duulay Hargeysa waxaan tagnay shirkii Jigjiga ciidankaas waxaa hogaaminayay dhinacooda ciidanka Soomaaliya waxaa dhinacay hogaaminay aniga waxaa ka mid ahaa Cornel Ibrahim Aadan Doolaal waxaa ka mid ahaa Cornel Maxamed Ibraahim sabaro daqiiqa iyo saraakiisha aagga markaas aagga la howlgalka nala socday baa ka mid ahaa dhinacoodana waxaa ka mid ahaa wasiir ku-xigeenkii gaashaandhigga waaga Mengistu General Masfin Gabriel waxaa ka mid ahaa General Abarre Abebe oo ahaa taliyaha qaybta bari taliskooda Harar waxaa ka mid ahaa nin la yiraahdo Tadetse oo isna ahaa sarkaal Cornel isna howlgelinta ugu qaabilsanaa gaaska qaybta ugu qaabilsanaa saddexaan nin iyo rag la socday ayagana shirka yimi maash haddaan isugu tagnaa dood baa la galay doodii markii horeysa waa la isku fahmi waayo waxaa la isugu fahmi anaga qodobada halkaa ku qoran loo soo diray waa ku jireen jabadu waa ku jireen laga hadlo iyagu waa diideen laga hadlo jabadaha in laga hadlo waa diidanaya
marka waxaa la gaaray inaan nahraanona waa ka tegaynaa marka shirka ha burburo annaga waxaa noo soo wakiil sheekh inaan nidaamkaa raacno anna amar baan ku socon ciidan baan nahay inaan nidaamkaa raacno ilaa markii dambe xoogaa ay soo daacadii aan ka haddana soo dabceen oo ay ogolaadeen in hawshii la bilaabo after 3 maalmood kadib waxaanu shirkii labaad ku qabanay magaalada Boorame halkaas ayna yimaadeen markaasaanu ka bilowday inaan markaa ciidamadii kala raridoodii in la kala durkiyo annagoo taliska anaga iyo ranka taliyaha guddiga hogaamintu meeshaan joognay laakiin saraakiisha hawsha qaban lahayd baa aadaysay oo ciidamada kala durkinaysay oo aagaga maabkii maab bay wateen kaartadaas wataan maabkaasay kusoo qori jireen inta kilomitir ay kala durkeen iyo difaacooda raboodkaasay noo keeni jireen kii labaadna waxaanu ku qabanay labaadna markaan Boorame ka tagnay waxaa lagu qabtay magaalada la yidhaahdo galaadi haddii aan tagnayna sidoo kaleeto hawshii ciidamada kala durkiyey maalinta waxaa ugu dareed waxaa la sheegay saraakiil SSDF ah oo meesha joogtay kii jaranka ahaa shirkooyinka waxaan ku yidhi raggaas aan arkay ragga soo ragga meel baaba lagu xirtayoo waxaa la diidayaaba inay aan isragno yaaba la diidayo waaba xiran yihiin waxaa la inay aragnaaba la diiday waxaa ninkan waa salaamayaa aan salaano ana wax kale kama dhan aan salaano waa diideen galaadi bay wallaahi raggaas dee baa lii sheegay laakiin magaalada markaan ragga xiran baa lii sheegay ragga saraakiila meesha ku jirtaa la yidhi marka adigu hadee ka tagnay kabacdina shirkii ku xigaan ku qabanay Baydhabo mar walba meel baa la tegayey after Baydhabo haddana waxaan tagnay meeshaan dhinacan Oromada waxaa la yidhahdaa Baydhabaan waxaan dhulsare markaan ka tagnay waxaan tagnay Baydhabo kabacdina waxaa weeye godayna kusoo xiray wixii oo dhan hawsheeda from Saylac ilaa Doolo inta aaggaas ah waxay ku xiran tahay aagga ay ku xiran tahay qaar baa 15 kilomitir qaar baa 30 kala durka ciidanka waxaa loo fiiriyaa meesha difaacooda uu ku habboon yahay inay galaan ama buura hadday tahay ama dhul banaan hadday tahay waa kala duwanaayen laakiin meesha ugu yar heshiis nabadeed ahaa 15 kilomitir ah ayuu ahaa 15 kilomitir baa ugu yareed wax kala durkiyo marka ilaa Saylac ilaa Doolo intaasaan ku wada jiray inaan ciidamada kala durko waajibkana loo dirana wuxuu ahaa in ciidamada la kala durkiyo la kaaro laakiin iyagu waxaan dareensanaa inaysan hallin ka ahayn oo ay khiyaano ay ku jirtay heshiiska waayo wixii ka dambeeyey haddee waa ogtahay wixii dhacay marka khiyaanada maxay sameeyeen khiyaanada waxay keentay inay Hargeysa soo weeraraan oo Burco soo weeraraan khiyaanaday ka mid tahay haddii dowladda heshiiska in la fuliyo Soomaaliya marka taa intaasaan ku ekeenaya heshiisku waxaa tahay heshiis dheer buu ahaa garab siyaasadeed buu lahaa maxaa kala soctaa qodobada kale oo heshiiska lagu galay garabka ciidanka ay khayaan ay ku jirtay saa u dhigtay wallaahi anaga waxaa naga khusayay garabka ciidanka laakiin arrimaha kale siyaasadda arrimaha dibadda qaabilsanayd annaga noolama soo dirin annaga jawaab waxoo dhan noolama soo dirin kaliya saraakiisha waxaa loo soo xilsaaray qodobkanana khuseeya laakiin wixii diblomaasiyada oo siyaasadda labada dowladood wax warbixina kama hayno noolama soo dirin qoraalka maba ana arag ba annaga inta kalena khuseysa ayaa loo soo qoray saraakiisha loo soo dhiibay xamar ka timi heshiiska markaad galayseen Ethiopia oo ciidamada la kala qaadiyay dhinaca Soomaaliyana waxay hoostigaraynaysaa mucaarad Ethiopia oo ay kamid tahay nimankii Eritreankii iyo Tigraygii iyo Oromadii iyo idaacada ku lahaa iyo xagga soo dagaalamay SDF naftuba xagga ay u joogeen maxaa ka samaysan qoliyaha horta Eritrea Oromadu horta awoodtaas oo macno weyn kuma lahayn laakiin Eritrea macno Soomaaliya ku lahayd markaas Eritrea markaa dagaal kuma jiro waxa ku jirtay diyaar garow in Soomaaliya waxay u timid in hub la siiyo Soomaaliya markaas waxa weeye waqooyi baan hubkii ugu dambeeyey ay dalka ku qabsadeenba waxaan uga raray berbera looga raray dowladda magaceedan lagu keeno waa loo soo gaday China looga soo gaday marka dagaalkaas ay ku qabsadeenba nimankan Tigreeg iyo Eritreankan labada isku jireen markaas yaana Eritrea kale wada socdeen Eritrea Tigreeg
marka labadaas waxaa caawini jiray dowladdii dhexe waxay ku caawinaysay in mangista meesha laga cadow anaa mangista cadow bunaa in meesha laga saaro dayadii waa lagu guulaysan in meesha laga saaro jabhadaas waa la hubeeyey waana la diyaariyey waa la tababaray waana la diyaariyey hubna waa la siiyey dalkiina waa la wareey waa qabsada marka daways khiyaanteen idinkuna nimankii baa hubeen ma khiyaanada horeysay khiyaanada anna tan khiyaano ma waajibkana aan gudanay yaa khiyaanada ku horeey sidee ku yimi mechanismka is-aaminka ah in dal xabadii isugu jirtay oo jabhada mucaaradi kasoo kala jeedeen ay heshiiskaa degdeg kaa galaan sidee isku aaminteen wallahi de anagu horta saraakiil waxaan ahayn saraakiil amarka bolisaan ahayne dowladda dhexe hawshaas u tiilay oo heshiis gashay laakiin anagu saraakiil amarka qaato bolisaan ahayne shaqo kuma lahayn wixii galay iyo heshiiskaa siyaasadeed dowladday u tiilay taas marka khiyaano qaran baan kuu sheegay inay daacad ka ahayn talooyinka qaadeen baa markhaanti ka mingisto qaadeen markii maxaa kala socotaa xaaladii ururka SSDF markaas oo aan isagu saraakiishiisu wax reerayd ciidankiisu effective ma ahayn bay kala hadlayeen idaacadda markaa waa la xiray waxay talabooyinka ugu horreeya la qaaday in radio kulmis la xiro dabadeedna heshiiska waxaa ku jiray in ururada mucaaradka ahi hadday dagaalamayaan dalkooda gudaha ay aadaan oo Itoobiya aysan xabad dambe ka ridin maxaa ka dareensanadeen markaas wallaahi anugu horta arrintaa SS anu markaas markaa Maraykanka imanin qaybta 21aad baa la keenay meesha SSDF u badnayn waxay iga soo horjeedo waxay balanbal Jaan Careys Allah u naxariisto ayaa halkaas madax ka ahaa badan anu hadda markaasna raggii hogaaminayay SSDF oo jabhadana Cabdullaahi Xuseen waa tii la xiray rag badan ku kala yaaceen anu siyaasad waxaan la imi inaan dadkaas dalka soo geliyo oo aan ka soo saaro anaa go-aankaa qaatay madaxda dowladda anaa u gudbiyey dowladdan way u raacday haddaa qaban qabtaa laakiin go-aanka anaa gaaray in raggaas aan la xiriiro oo aan ka soo saaro meesha raggii ugu horreeya wuxuu ahaa Cabdullaahi Indha Khamro oo 5 taangiya la soo baxay iyo saraakiil la socota oo dhinaca Qorab iyo halkaa ka soo gala ayaa ahaayeen oo soo gala qaybta soo gala General Morgan intaas hadaan uga baxano amurahaas inqilaabka iyo xilligaas ka General Morgan hortiisa waa kuma maxaa hobby u leedahay maxaa jeceshahay markaadan hawl ku jirin oo hawayada maxaa kamid ah والله horta qof walba hiwaayad waa leeyahay anuu seedaba hiwaayadda horteeda baa fasiraad badan tahay fasiraadda waa leeyahay laakiin qofku wuxuu jecel yahay noloshiisa horta ka muhiimsan anuu seedaba ilaa yaraantaydiiba seeda waxaan iska jeclaa isboortiga yaraantaydii isboortiga ragga isboortiga basketball baan ciyaari jiray footballka aan ciyaari jiray isboortiga waa kusoo barbaaray ilaa waqtigaasna waa wadayo ma joojin haddana waxaa dee maanta haddaa iska daba timi hadda waxaan go-aansaday socod keliya inaan socdo maalinta inaan gooyo 10 kilomitr 15 kilomitr mar baan socdaa marka alxamdulilaahi waxa weeye hiwaayadeed waxa weeye waa socodkaas iyo mararka qaarkoodna inaan wax iska akhriyo ama xagga diinta ha noqoto ama thaqaafadda kale ha noqote waxaan kale in lagu madadaasho waa meesha ku jirta markaan 77 kii dagaalka 777 waxaan gurtay 77 dagaalkan dhacin bishii January ka horreysay aan gurtay anoo baarka iskaabnaha dagaalka tagan bilowday nin madaxweynaha gabadhiisa soo shukaasatay gabadhan aydan wada gabadhan banaanka ka raadsaday أنا تعوتي ما تعوتي يعني قبل يسوق وسوي أنا وأنا ما جين ما أنا ودي ما تعوتي يعني قبل أنا أبغى أنا ما تعوق وسوي ما أنا أكسر نقولنا هو يدا وتكبي هو يدا ويدي